dhammaantiin waan isku wada raacsannahay inuu TikTok yahay application-ka ugu faafitaanka badan xilligan la joogo. Tusaale ahaan Soomaalida qof kasta oo mobile casri ah haysta ugu jira. Haddaynu qeexitaan guud ka bixino waa app laga leeyahay dalka China oo lagu talagalay in lagu soo gudbiyo muuqaalo gaaban oo ka kooban dance, barankiyo, kaftan iyo madadaalo kale. inkastoo lagu talagalay in waxyaabaha lagu baahiyo, haddana maanta waxaanu ka hadli doonaa dhinac kale oo TikTok leeyahay, waana dhinaca madow ee uu leeyahay. laakiin intaan ugu dagalin muuqaalka, ha ilaawin inaad like na siiso, sidoo kalena subscribe garisid kanaalka. mahadsanid. waxay soo bilaamatay adu faafida TikTok 2018 markaas oo uu abku la kulmay caanimo kadis ah. caanimada waxaa ka dambeysay mid caalami ahayd oo bartamihii 2020 dhacday. taa dambe shirkadda TikTok waxay sheegtay inay 2 bilyan oo qof oo adduunka dacaladiisa ku kala nool moobiladooda ku shubteen abka. 2020 kadib, abku markuu sida waalida ah u caan baxay, qof kasta oo wax macquul ah ku soo bandhiga waxa uu helayay views malaayiin ah. kabacdi dadku waxay bilaabeen si ay ku heli lahaayeen daawasho badan, laakiin views raadiskaasi wuxuu ku sababay inay sameeyaan waxyaabo yaab badan. tusaale ahaan mid kamid ah waxyaabihii iga yaabiyay waxaa kamid ah account lagu magacaabo Adopted and Disabled Child. accountigan TikTok ah waxa la soo geliyaa muuqaalo nin lagu magacaabo Sebastian ku caawinayo saaxiibkiisa uu caawinayana waa dadka baahiyaha gaarka ah qaba oo waa curyaan. Sebastian wuxuu ka soo muuqanayay muuqaalada isagoo maalin kasta saaxiibkii u qaadaya meesha uu u baahan yahay. guud ahaan markii dadku arkeen accountka ninkan caawinaya saaxiibkiisa tabaalaysan, way ka wada heleen waana follow gareeyeen. muddo kooban kadib waxa la kashifay ninkii xanuunsanayay ee Sebastian saaxiibkii ahaa inuu caafimaadkiisu taam yahay oo aan waxba qabin. yacni wuxuu sidaa u sameeyay kaliya si uu views badan u helo. ugu dambeyntiina wax la sheegay inaanu curyaan ahayn ee uu yahay ciyaartoy u ciyaara koox yar oo kubadda cagta waddanka Mareykanka ka ciyaarta. sababta sheekadan caanka ka sii dhigtay waa inuu Sebastian saaxiibkiisa matalayay inuu xanuunsanayo bulshada TikTok uga ururiyay mucaawino uu ku sheegay in lagu daweynayo. nimankan kaliya viewstone ma yahayn waxay lahaayeen dananka waaweyn, laakiin waa la kashifay. kashifaada ka bacdina Sebastian raaligelin ayuu bixiyay, wuxuuna masaxay dhammaan muuqaaladii isaga saaxiibkii ku saabsanaa ee TikTok ku jiray. markaasi ma yahayn markii koobaad ee qof xanuun been ah matalo isagoo views raadisa. isla dhacdada hore mid la mid ayay samaysay naagtan lagu magacaabo Amelia Rossi. Amelia waxay furatay account TikTok oo ay kaga hadlayso xanuun ay qabto oo la yiraahdo Tourette syndrome. Tourette syndrome waa khalkhal ku yimaada habdhiska dareensidaha ama neerfayaasha. qofka xanuunka qabaanay isagoo iska jooga ayuu sameeyaa xarakaad aan loo baahnayn, sidoo kale sabab la'aan ayuu iska qoslayaa ama iska qaylinayaa. bukaanka cudurkan qaba ma awoodo inuu xakameeyo ficilada uu sameeyo. waa xanuun aad u xun oo aan dawo lahayn, laakiin kaliya waxa uu leeyahay habab lagu yareeyo. tusaale ahaan dadka adduunka caanka ka ah ee xanuunkan qaba waxaa kamid ah fanaanada aynu hore uga soo hadalnay sheekadeeda ee Billie Eilish. Beginning just a little bit, you grew up in LA. You write. Amelia waxay muuqaal ay TikTok-teeda soo dhigtay ku sheegtay inuu xanuunkani ku dhacay iyadoo 7 sano jira, ilaa markaa ay yareed ilaa imikana uu hadalkeedu go'go'ayo. With Stardust Fiber Studio, I am one of the owners. I also do awareness videos for Tourette's on TikTok. dadkii ku xirnaa way ka wada naxeen, waxaanay kommentiyada ugu soo qoreen hababka ay ku yareyn lahayd cudurka. Wow. I want to talk. Wow. laakiin muddo kadib dadkii daneynayay qadiyadda Amelia waxay soo ogaadeen inay leedahay bog Facebook. boggeeda Facebookana ay soo gelisay muuqaalo dhowr ah oo markay hadlayso ay caadi u hadlayso, aanay lahayn xanuunkii ay ku ogaayeen. waliba muuqaalka la soo helay maaha muuqaal gaabana, waa muuqaal ay 1 saac live ku jirtay iyadoo caafimaad qabta. halka markay xaaladdu marayso waxa ku kacay dadkii TikTok ka taageeri jiray, iyagoo isweydiiyay sababta ay la garan waayeen beenta ay gabadhani sheegayso. maxaa yeelay markasta oo ay hadlayso oo xanuunku qabto qosol ayay ka dambaysiinaysay. halkaana waxa ku sii batay dadka qoraalka ku weerarayay gabadhan, iyagoo ku eedeynaya inay views u samaysay ficilkan xun. ugu dambeyntii Amelia walaasheed ayaa mowduucan ka hadashay, waxaana sheegtay inaanay walaasheed qabin xanuunka Tourette syndrome. walaasheedna waxay sidoo kale sheegtay inay Amelia ilaa yaraanteedii iska dhigdhigi jirtay sidii qof xanuunsanaya. mar waxay ku sheegtay inuu hayo bipolar disorder, marna waxay tiri waxay qabtaa schizophrenia. labadubana waa cillado maskaxeed iyo isku buuq. waxaanay ku soo gabagabaysay inuu walaasheed isku buuq hayo oo ay waalan tahay. gabadhanna waa Amelia walaasheed dhab ah, sababtoo ah waxa la helay muuqaalo goor hore ah oo ay kala soo muuqatay.
kabacdi ka hadalka ay walaasheed ka hadashay Amelia waxay masaxday dhammaan muuqaaladii TikTok-teeda ku jiray ayaama kadibna account-kii way delete garaysay laakiin may masixin bogagga ay ku leedahay Facebook iyo Instagram-ka muuqaaladeeda imika ugu jira bogaggaasna ma qabta xanuun oo waa caadi iminkana waxaanu soo qaadanaynaa qadiyadda wiilkii dambiilaha ahaa ee hablaha TikTok ku jira qaladka ku difaaceen wiilkan waxa lagu magacaabaa Cameron Haren waxa uu maalmo dhan haystay TikTok dadkii qisada Cameron Haren aan ka warhayn haddaan si yar kooban uga dabageeyo 2018 Cameron waxa uu ka mid ahaa dhalinyaro sameynayay waxa la yiraahdo street racing ama tartanka baabuurta wadooyinka dabcan waynu wada ognahay inuu tartanka wadooyinku sharci darro yahay maxaa yeelay waa halis oo waxa uu geeri u horseedi karaya qof wadada iska maraya laakiin Cameron Haren iyo asxaabtiisa ay wada tartamayeen way iska indhatireen arrinta waxaana dhayalsadeen nafaha dadka dariiqa maraya iyagoo tartankii ku guda jira ayuu Cameron gaadhigii u wada jirsiyay hooyo miskiin ah oo wadada maraysay iyo nuuna yar oo isidatay nasiib darana hooyadii iyo cunugeedii yar way ku dhinteen shilka sanadkii hore 2021 ay Cameron maxkamaddu ku xukuntay xukun marka dhan laga eego caadi ahaa xukunka ay maxkamaddu ku xukuntay waxa uu ahaa 24 sano oo xabsiya maxaa yeelay waxa uu dilay 2 qof laakiin dadweynaha TikTok ku jira muu cajabin xukunkaasi waxaanay lahaayeen isku hal aragti oo sheegaysa inaanay waajib ahayn inuu Cameron xabsi galo sababtoo ah uu qurux badan yahay waxaanay u sameeyeen hashtag ay ku leeyihiin justice for Cameron ama cadaalad waa inuu helaa Cameron waxaana hashtag ay u sameeyeen ka qayb qaatay 26 milyan oo qof dhammaan dadkaasi waxay ahaayeen dad caadifadaysan oo ku andacoonay inaanu Cameron istaahilin galitaanka xabsiga sababta ay ku diidayaan ay tahay maala yacni People on the internet and on TikTok specifically think that this punishment's too harsh and that he deserves a second chance. Here are some of the comments. Poor boy, I hope they will forgive him. He looks innocent. He didn't do it on purpose. No, it wasn't an accident. He doesn't deserve that. This one. You're too cute. I fell in love with a criminal. qodobka ugu dambeeya aynu soo qaadanaynaa waa wax runtii yaab badan waana wax lagu magacaabo cartel TikTok ugu horreyntii bal aynu wada fahanno macnaha kelmadda cartel waa kelmad loo yaqaan burcadda ka ganacsata waxyaabaha kontrabanka ka ah waddanka Mexico dhammaanteen hore waa inuu maqalnay khatarta ay leeyihiin gaangiska Mexicaanku waxaana uu aabaaha mid aynu qisadiisa hore uga hadalnay oo Pablo Escobar la odhan jiray laakiin waxa la yaabkahay waxa uu yahay inay burcadda halista ah bogag rasmi ah ka samaysteen TikTok koox cartel Mexican ayaa TikTok ka furatay account-iyo muuqaalada ay soo gelinayaan waxay ku sharaxayaan qaabka faakaysiga ah ay u nool yihiin iyagoo soo bandhigaya lacagta ay haystaan baabuurta ay wataan iyo qasriyada u kiraysan mararka qaarna live ayay soo galayeen iyagoo dagaal kula jira kooxo burcada oo ka soo horjeeda intaa kadib dad badan ayaa falowgareeyay account-yadoodii walow maamulka TikTok ay dhankooda dagaal kaga wadeen burcada oo tusaale ahaan waxay saarayeen oo tirtirayeen muuqaal kasta oo ay ku arkaan iyadoo lagu qoray cartel ama gang ama kelmad kale oo burcada la xidhiidha haddana iyadoo ay sidaa tahay muuqaaladoodu kamay faaruqin TikTok sababta ay burcadu TikTok account-nada uga sameysanayaanna waxay u eg tahay inay dhalinyarada u gacan haadinayaan oo ay ku leeyihiin nagu soo biira tusaale ahaan muuqaalkan waxa soo dhigay qof ka tirsan burcadda cartel wuxuuna muuqaalka dadka ugu sheegayaa nolosha raaxada ah ee uu ku nool yahay wuxuuna ku soo dul qoray in lagula taliyay inuu wax barto laakiin uu kooxda cartel ku biiray sidaana uu ku taajiray dhalinyaradana waxa uu ku leeyahay iskuul iyo college haadinay cartel ku soo biira iyadoo nolol wacan taala muddo kadib arrintani hadal badan ayay dhalisay kadib markii ay dhalinyaro badan la xiriireen account-yada khaaska ah ee kooxaha burcadda iyagoo u sheegay inay doonayaan inay la shaqeeyaan oo daroogada la tahriibiyaan warkan dambe ee sheegaya dhalinyarada TikTok kala xidhiidhay burcadda ee ku biirtay si rasmi ah uma xaqiijin karo laakiin waa war TikTok yaalla oo la hadal hayo halkan ayuu ku eegyahay mawduucii aynu ku eegnay dhinaca madow ee TikTok leeyahay hadduu muuqaalkani like badan helo waxaan ka soo samayn doonaa qayb labaad waynooyo muuqaalka kan xiga mahadsanidin